بسم الله الرحمن الرحيم. anigoo Abdullahi Yusuf Ahmed loona doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa iga wallaahiya iga billaahiya igu tallaahiya waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan u guto xilkayga u guto sida daacadnimo ah oo danta dalka iyo diinta oo waafaqsan sharciga iyo diinta islaamka iyo danta dadkaba waan u adeego dalka iyo dadka Soomaaliya kuna jirto dhowrana oo si buuxda u dhowra ahdiga Soomaaliya iyo shuruucda kale ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya wabillahi tawfiiq.